maanta waa maalin taariikhi ah waad ogtiin hal sano iyo bil baan aniga waxaan jiifay Banyoole Mandheera dhexdooda waxaan diidanaa ma ahayn Soomaaliya waxaan raacayna ma ahayn Kenya waxaan diidanaa hadaf guracan oon dareemaynay inuu nahay waxaan diidanaa jiritaanka naga in la burburiyo aan diidanayn waxaan diidanaa rabitaanka naga in la caburiyo aan diidaynay waxa weeye waxaan la isku fahminna ma jiraan qof ba inta shan xabad lagu dhufta laga xajooda wixii hadii aan isku fahanay dawladdeena federaalka ee Soomaaliya u sareeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaheena iyo dhamaan xildhibaanadiisa iyo wasiiradiisa iyo dawladdiisa haddaan isku fahanay waxaan leenahay welcome to open hands soo dhawaadan leenahay waxa weeye haddii dad xuduud ay degan yihiin annaga qaasatan reegada reedaawo dawladda federaalka waa ka adkayn sababtoo dad xuduud degan oo dawladda daris haysto way ka adagayeen cid Soomaaliya horumar rabtana ma jiraan waxaan leenahay si guud iyo si gaar ah waxaan ugu sheegaynaa dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hogaamiyo inuu ilaa ugu soo fiiriyo annaga reegada ah hanooga carin nala qabiil tahay xaq baan leenahay hanooga carin degaankii dadkii ka soo shaqayn jiray aanahay waxa weeye inta wax tarayso wadagta dawladda Soomaaliya wax u xanimneed Banyoole gobolka Gado wax kale ma xanimneyn James Swani Dolly iyo Mamoto waxay dhaqaajin waayeen waxay Banyoole gobolka Gado waxaan soo dhawaynaynaa nabadda annaga aan hormuudka ka nahay waxaan soo dhawaynaynaa jiritaanka Soomaaliya waxaan soo dhamaynaynaa wax kasta oo Soomaaliya nabad u horseedi karo aniga toban bari baan carruurtayda ka arka wallahi Sheekh Shariif wuxuu summa wallahi waxaan kugu dhaarey toban bari baan carruurtayda ka arka hal sano iyo bil wax naaga oo sideedaba naag sheegato Facebook uga hor badan ma jirto waxaan idin sheegayaa nabadii waa qaadanay dawladda federaalkana waxaa lagu xantaynay ballamaha ka baxdo waa lagu xantaa ma qaranayno madaxweynaha Soomaaliya ilaa Cabdiraxmaan Dheeri al-Cadaala dadka nagala joogan waxa la idinku xantaa ballamaha inaad ka baxdaan haddaad ka baxdaan ma baabaayno dad un baa jiro ballantii sidaan u galnay u fuliya annaga wasiirkeena Ilaahay ka sokow rasuulkeena waa kan Ilaahay ka sokow Nabi Maxamed ka sokow rasuulkeena waa kan annaga waa idin soo dhawaynaynaa nabadan anaa tiir u ah waxaan ballan qaadayaa gobolka Gado inaan haweenkiisa isku xiro waxaan ballan qaadayaa dawladda inaan la shaqeeyo haddii qof walbana waa ogyahay wixii aan nahay iyo waxa tiin soo dhawaada waa idin soo dhawaynaynaa inta dhimatay Allah u naxariisto inta noolna waxa weeye hormar ku soo dhawow macmiil naqshada cusub ee application-ka Waafi oo lagu sameeyay dib habeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horreyn soo fur application-ka Waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kalena haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sireedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama akoon oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya Sandi kadibna dooro kaaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sireedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambaynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg Play Store-ka ama App Store-ka moobilkaaga baan rajaynayna